guddoomiyihii hore maamulka gobolka Gedo Cismaan Nuux Xaaji Macalimuhu oo war qoraal ah soo saaray ayaa shaaciyay inuu ku xiriirayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo baaq u diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. aniga saaka waxaan aaday garoonka anoo dareemay in la soo celin doono laakiin amarka ra'iisul wasaaraha markuu baxay waxaan go'aan qaatay inaan qafl celin karin meesha markaan galay waxaan qabsaday qolada diyaaradda lala hadlay waxaana lagu yiri maxaan ku raahdaa meeshaan lama mari kara wili macallimow iyo tiimka la socdo ma mari karaan حقيقي waxay noo cadeeyeen Cabdullaahi Kulano oo nabadgelyada u sareeyay inuu nahaysta lana soo hadlay qolada diyaaradaha arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu warbaahinta ka sheegay inaan qofna laga celin karin garoonka diyaaradaha aadan cadeeyay magaalada Muqdisho. Bismillahir Rahmaanir Rahiim ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble markuu arkay qodobka 22aad ee dastuurka meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya faqradiisa koowaad ee dhigaya qof kasta oo si sharci ah ku degan dhulka Jamhuuriyadda waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah u degi karo uu dhex socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah kana bixi karo lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka aadan cadde taas oo xadgudub ku ah amarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu xilka ka qaaday Cabdullaahi Aadan Kulane madaxa shaqaalaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed Cabdi Wahaab Sheekh Cali taliyaha nabad sugidda garoonka aadan cadde dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu mar kale ku celinayaa in talaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka kuna dhiirato carqaladaynta geedi socodka doorashooyinka ee isaga uu mas'uulka ka yahay